waxaa jirtaa waad safar badan tahay dunida meelana tagin wayba yar tahayba Soomaalida dhulka Soomaalidana waa sidoo kale maadaama DJ-nimadii gabagabaysay dadku inta badan waxay isweydiiyaan DJ dakhligiisa ugu badan xaguu ka soo galaa waxyaabo ka shaqeeyo tol maxay yihiin su'aalo noocaas social media dadka ku taxana ku taageera ay isweydiiyaan waa su'aashan rimi dakhligaaga ugu badan halka ka soo galaa dakhligaaga ugu badan halka ka soo galaa su'aashan rimi waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد أمريكا سودا فايد الدنيا عالم كتير وسلامتي وولكم ميرال كي قدامنا سنة ميرال في شير سودا وهذا إذا الهدي بقى channel قاعد تقول عصوب تاي سبسكرايب تسار مقال كنا وجرسي نشر جرال قفل ما قف يدلو ذاك ابتدائي أضمن مع ستاي أوكي تعمر كلاقي مع دومات برنامج كذي وضع ورتمع معه وذي كم غناء وذكر هالي الدنيا أدبان ونركينا لهذين حاجات كده على الماهر لماتين واحد وصل نقضي وذي اللي تشوجا ما تمقال واحد يا ديجي سوير oo la wada garanayo oo maartay nin celebrity oo maartay caana marka waraysi laga qaaday ayay miraash ka wada bixin doona ayo si wada ognahay wuxuu ka baxay DJ-nimadii ka baxay oo 17 ku dhawaaqay ka bacdi bal waxyaabo ganacsigiisa waxyaabo kale ka shaqeeya hada ayaan sileegi doona si socodna DJ Subeer oo aan kula kulanay shirka dhalinyarada Soomaalida oo maanta ka furmay magaalada Jigjiga walaal MMTV ayaan kugu soo dhaweynayaa aad iyo aad baan kaga madceliyay adiga dhalinyarada kamarada inoo haysa hadda iyo walaalkayligba dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum iyo intina daawan doontaba shirkan saaka waxa goobjoog ahaa dhalinyaro badan oo social media caan ka ah sida DJ Subeer oo hormuud u ah dhalinyaro badan dhinaca DJ-nimadana door weyn ka ciyaaray DJ bal dareenkaaga maanta adiga oo ka soo qayb galay shirkan dhalinyaro badan oo tiro badan shirka horta asxaabta qaaligaadi ka dabageeyo shirku wuxuu ahaa shir dhalinyarta social media ku jirta ee caanka loo qabtay oo la isku arkay fikrada la isku wadaarsanay shir aad u fiican buu ahaa oo maartay muhiimadiisa wata marka shirka saasoo ahaa DJ Subeerna ka qayb galay bal islaagno ku arkay dad badan oo social media iskala socoteen aad ku arkay bal adigoo shirka noo soo koobaya wata waa wax farxada in Somali Youth Summit lagu qabtay Jigjiga ta oo dhalinyaradii sidii shirkaba laga sheegay qaaradaha adduunka oo dhan ka wala yimaadeen taasna waxa keenaysa horta isbedelka deegaanka ku dhacay inay maanta dhalinyaradii ku soo dhiirigeladaan marka xaggan waxaan u salaamayaa horta madaxweyne Mustafa iyo dhammaan wasiiradiisa oo qaar badan xaggan ay joogaan oo asxaabta dhalinyaradina inay platform ay helaan ay ku kulmaan idea kala bedeshaan labadan cashay shirku socdo waa waxaan hore u jirin marka waa wax hotaan taasna aan qaban qaabiyaasha Maxamed Cumar iyo walaasha Sameeyabada ay ugu horeeyaan inaan leeyahay hambaliyo marka oo wax lagu farxo inay dhalinyaro maanta Soomaaliya ay jiraan oo represent gareeyada Facebook iyo Apple iyo Google iyo waa wax inantayda iyo inankayga oo kale ay role model u haystaan 10 sano ka hor Soomaali dhalinyaro oo horumarka gaaray ama awoodda social media ku leh oo verified la Facebook ama Twitter ama Instagram-ka wax lagu farxo wallaah waana wax aan anigu aad u soo dhaweynayo oo markii laga codsaday Maxamed Cumar soo qaracay uu yiri soo waxaan ka soo qayb galo shakil-aan iyo shuruud la'aanba soo DJ Subeer noo sheegay waa maqliseen shirkaas oo ah shir muhiimadiisa wata la iskuguna arkay fikradana lagu kala qaadanay dhalinyarada farafeedka social media kule amada Soomaalida ee maartay celebrity-ga loo qabtay oo la isku arkay oo shir wuxuu ahaa xamaasadiisa wata oo wanaagsan ku soo diyaaradan ku soo dhacay waxaad ka mid ahay boqolkii qof ee ugu saameynta badnaa dhinaca social media 2020 waxaad ka mid ahay dadkii sida gaarka loo soo casuumay shirka ku casuunay moolfog uga yimid ee soo ajiibay jawigaaga farxad isma lahayn hadda markii social media aan bilaabay lambaradaas millions of people baa ku daawanay waxa aniga kaliya baa isla sheekaysan jiray marka waa farxad haddii aan anigina wax ku kordhin karo ama dhalinyaradii motivation ama inspiration aan siin karo oo aan u faa'iideyn karo lambaradan ilaan taasa beenayn inuu dhalinyartii dhiirigeliyo oo maartay isagu wuxuu u qaban karo because role model waa dadka dhalinyarta waa dadka ku dayanayaan Soomaalida la oranayo hebel iyo hebel ay qofka dhalinyarada markuu soo baxayo ku dayan karo uu role model u haan karo weeyaan hadaan dhiirigelin muhiimadu waa dhiirigelinta ma la yacni bay noqonaysaa hadii kala hadii wixii iska haysatid hadaan give back ana sameynaa the community
haddii aynu usoo noqono haddii intaasi shirka kaga nimaadno iyo mawduuciisi waxaan geli doonaa bal xoogaa su-aalaan si yara weydiin doono aan ka faa'iideyn doono maadaama DJSuper maanta si gaara MMTV waraysi u siinayo waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo DJ waxaad noqo waana daayar tahay maxaa oran karnaa DJSuper miyiriya meemera 40 waxba dhaafay qotay DJgii ugu saameynta badnaa DJyada ee Soomaalida waana daayar tahay maxaa sababay la oran karaa horta ku maasanteena daayar ahay waxaan islahaa waxa oranaysaa waa 40 baqraacsan horta DJnimada horta isma lahayn bad Soomaalidu DJnimo way garanaysaa markii anu ajnabi iyo Swedish iyo gaalaan la soo shaqeyn jiray ama foreigners bal oran karo Soomaalidana markii aan soo dhaxgalay waxyaalo badan baan anigu aan faa'iido horta dhaqankii suugaantii af Soomaaligi wax badan bay horta DJnimada aniga igu soo kordhisay teeda kalena waxa fursad ay heleen dhalinyaro badan oo hubbigoodu ahaa inay DJ noqdaan oo inay la tartamaan maanta ajnabiga DJyaal badan baa maanta jira horta DJnimada Soomaalida marka Soomaaliya DJ u tahay wax badan lagama faa'iido waa sida fanka Soomaalida oo kale weeyaan kabacdi laakiin marka ajnabi imika ninkan oo kale waxa marka oo kala wiilkiisa waxa weeyaan ajaanibtu la shaqeynayeen ajaanibta ayaa waxa ka faa'iidi karta oo qof ajaanibtu wanaga horeysa lama oran karno ajaanib gaar karna because milyan fanaanka kaliya tisho qabsan milyan ay maada showgiisa oo lacagta lagu soo galo showgiyada showgiyada 100,000 oo jeeb ku soo laabanta ka bacdi DJ lacag badan buu qaadanaya isaguna haduu DJ fiican yahay marka saadirteed bay nooga fiican mar walba ay nooga horeeyaan ku soo kordhay fankii Soomaalida sidii raabku ugu soo kordhay DJnimada ugu soo kordhay maanta DJ waa lagu xisaabtamaaba waqtiyo hore waxaad sheegtay in aad soo gabagabaysay DJnimada haddana masraxyo badan baad ka soo muuqatay oo showyo badan baad ka soo muuqato tiro badan oo fanaaniin badan oo caanogeyga Soomaalida ka caan ay qabsadeen oo dafaa dunida ku kala sugan maxaa kalifay waa saxda anu 2017 waxaan idhay waan iska daayay waxaan tiina ku taagana laakiin markuu walaalka Sultan Seraro magaaladiisii jigjiga igu soo dhaweeyay oo Yurub imiyo yiri Subeero garab baan kaaga baahanahay qasab bay guta ama walaalka nimcan hilaac oo yiraahdo Subeero Turkiga Yurub iraac ama walaasha farxiyo ka beeraan oo joogo xamar ay tiri kaalayto ama farxiyo fiska markii ay hargeysaan aanu nimay marka still goonkayga waa the same intaan diiday intaan yeelo intaan diida ka badan haddii aan kula kaftamo DJSuper okay wuxuu noo sheegay inuu DJnimada iska daay waan ogeyn laakiin intuu respect u haya qof weyn oo maartay oo respect u haya markuu soo codsado ayuu diidi kari waayay saadirteed buu DJnimada u tuma laakiin ninka DJnimada uu iska daay shaqadiisa joogtada ahayd mar walba qaban jiray uu iska daay sababad waxa jirta waad safar badan tahay dunida meel aan tagin wayba yar tahayba Soomaalida dhulka Soomaaliduna waa sidoo kale maadaama DJnimadii gabagabaysay dadku inta badan waxay isweydiiyaan DJ dakhligiisa ugu badan xaq ka soo galaa waxyaabo ka shaqeeyo tol maxay yihiin su'aalo noocaas social media dadka ku taxana ku taageera ay isweydiiyaan waa su'aashan rimi dakhligaaga ugu badan halka ka soo galaa dakhligaaga ugu badan halka ka soo galaa su'aashan rimi waa tahay bal naga yara dabagay horta qofka Subeer la socda aan uu ogyahay in shirkado aan la yorto oo business xagana ka xuseeyo shirkada hooyo xagana ka xuseeyo VAT Medical Share aan ku leeyahay beerista ugu horeysay in Afrika laga furo Hargeysa xamartay xagana ka xuseeyo Keto Coffee xagana ka xuseeyo muraayadahan aan sitaan waan iska leeyahay Lady Boss by Kayla Sameer marka horta dakhliga ma sha Allah Ali Amirna keedkoodu meel wuxuu noo sheegay inuu maartay ninga si wada ognahay hadda DJnimadu iska daay markuu shirkadayo oo shirkadaha badan noo sheegay tirada 4 amba 5 noo sheegay uu sheegay Soomaalida waxaan u rajeynayay in ku yaaci doonaan shirkadaha because nin Soomaaliyaale walaalkiina Soomaaliyaale in maartay sabor gareeyaan oo markasta wixiisa la isticmaalo because nin ajnabi oo maanta wuxuu soo saaro waa isticmaala runta marka laga hadlo in yaro ajnabi oo gaal fanaan gaal haduu maanta dhaa wax ma soo saaraya waana boqolkiiba 9 Soomaalida cid social media isticmaashay inay ku yaacayso oo la oranayo hebel baa waxaas waana la wada wax Soomaalidu leeyahay wax walaalkan leeyahay inta waa muhiim inaad walaalkaas support garayso because adna walaalka hadhow Britain lagu support garanay buu yaala tan kale DJnimadana wixii aan lacag ka sameyn karay waan ka sameeyay waayay adigu maadaama aad si weyn uga soo dhex muuqatay xagga DJnimada oo aad standard ka dhigtay dhinaca Soomaalida aad number 1 u tahay ay kugu dayanayaan dad badani maxaa ka dambeeyay baa la oran karaa inaad heerkan oo kale gaadhid technology
waxaan maanta ka hadlaynaa oo digital taana badi sharaxayba technology waxa weeyaan social media maanta ku jirtay weeyaan Instagram Facebook Twitter meel kasta anything waxa qof qarxinaya ambeen barana maanta DJ Swear anu waan ka hadlay laakiin weligii lama kulmin mana arag mana meelaystay hadana wana qana taariikhdiisa iyo wuxuu yahay magaciisa saddexan saadarteed ba qof walba oo caano oo loo bartay oo oo qofku ku gadma sida fudud ku gadma waxa social media waaye aaladan markaan isticmaalno waxa la dhahaa waxun bay soo kordhisay waxun bay samaysay dhalinyartii bay fasahaadisay kulli wanaageeduna u baday xumaanteedu baday dhalinyarta si qof walba soo isticmaalo waaye maanta shirkadiisa haduu halka maanta xayisiis uga sameeyo waxaan oogay Soomaali badan dad badan oo magaciisa ku faano daawado oo jecel inay wixiisa gadanayaan saadarteed bay ku caawinaysaa social media wanaag iyo xumaan buu leeyahay muuqaalka hadda la soo gaadhin oo la gaarsiina shirkada hal qof laba qof inta ka gaadhi aad iyo aad baad maasantahay one love bad leeyahay